dhawaada daawadayaal barnaamijkan waxaan ku wadaagi doonaa arrimo badan oo xasaasi ah oo maanta soo kordhay waayahay halka aad nagala socotaana waa warbaahintii GS Media cidda barnaamijka idinla socodsiinaysa waa anigoo ah Ismaaciil Xirsi Cigaal haddii aynu ku horeyno dhinaca hawada Soomaaliland waxa soo gashay maanta diyaarad ka timid dhinaca Djibouti diyaaradaas oo la sheegay wafti uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee China in hawada Soomaaliland dib uga celisay waayahay sidoo kale waxaan soo qaadanaynaa barnaamijkan laascaanood maxaa ku soo kordhay ciidamo diyaarad sido ayaa yimi oo lagu sheegay in ay dhinaca ammaanka ka sii shaqeynayaan sababtu tahay waxa la sugayaa sabtida soo socota bay sheegayaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo waftigu hogaaminayo oo ma iman kara talo sidoo kale barnaamijkan waxaynu ku soo qaadan doonaa qof afka duubtay oo shalay toole golaha shacabka baarlamaanka iska dhigay ama booskiisii la fariisiyay gudoomiye ku-xigeenkii koowaad oo Sacdiye Yaasiin lagu magacaabi jiray kaasoo maanta hadal hayn badan ka taagan tahay waayahay waxa jira islaamo la soo abaabulay oo wadooyinkii Muqdisho mudaharaad wax uu eegay cid ay ka mudaharaadayeen cid ay u mudaharaadayeen Israa'iil shaahaya Israa'iil ismaba yaqaaninba iyana barnaamijkooda waa ku soo qaadan doonaa waxa kale oo barnaamijkan isna aynu ku soo qaadanaynaa diyaarad hadal hayn badan ka dhalisay baraha bulshada oo wadanka Masar laga leeyahay balse hubka ay sidii ka soo qaaday wadanka Ciraaq oo ilaa iyo 3 cashay u dambeysay Muqdisho ka digisay iyadoo hubkii ay geysay tirakoobkiisii ugu badnaan la soo sheegay iyadoo hubkii ay sidii iyo tirakoobkiisiiba la soo sheegay haddana waxa jirta hadal hayn badan oo ka dhalatay iyo ujeedka ay lahayd waayahay idinkoo dhinaca commentiga nagala wadaagaya aragtidiina haddana share gareey oo like tana saara barnaamijka waa haddana hore noogu jeedin subscribe mar walba way ilowdaan waxa kale oo aynu ku nasanaynaa isla malcaamad dugsi quraan qofkii online iyo offline ba ku baranaya information-kii lambarrada waa kuwan kusoo dhawaad dugsiga Al-Furqaan Islaamic online fadlan waalid waajib weyn ayaa ka saaran ubadkaaga inaad ku xidhid Allah bartinda diinta Islaamka sidaa darteed dugsiga Al-Furqaan Islaamic online wuxuu qaadanayaa fasal cusub ardayda aan hore u soo dhigan diinta Islaamka waalidiinta aan hore wax u baran ayaan uga faa'iideynaynaa qoraalku wuu socdaa wixii faahfaahin nagala soo xiriiraan lambarada shaashada saaran ama linkiga aan soo dhigi doono faalada koobaad waayahay barnaamijkeena haddii aynu hore ugu marno waxa jira diyaarad hawada Soomaaliland dib looga celiyay diyaaradaas waxay ka soo galeysay dhinaca Djibouti sida la sheegayo waxaana saarnaa wasiirka arrimaha dibadda ee China wasiirka arrimaha dibadda ee China shalay toolo ay ahayd 10ka bisha January waxa laga sugayay Muqdisho shacab iyo dawlad iyo amisom waxa la istoobay garoonka Aadan Cabdalla Cismaan ninka wasiirka arrimaha dibadda ee China shalay garab wuxuu ka digay Tansaaniya sida halkayda ka muuqata waa u gasay Djibouti oo uga fariistay haddaba saaka barqanimadkii ayuu soo duulay isagoo dhinacu ka yimi baa ana garanay buu xagga Djibouti ka soo galay xuduudka Soomaaliland diyaaradda gabi ahaanba waxa celisay Somaliland oo xarunta dhinaca hawada laga maamulo magaalada Hargeysa airport ku yaala Cigaal International Airport waxaana lagu guuleystay diyaaradda in khadka Somaliland dib looga saaro waayahay bal haddaba wasiirkii arrimaha dibadda ee China ee Xasan Sheekh Maxamuud rajaynayay muddo iminka 5 casho gaaraysa inuu ka soo dego garoonka Aadan Cabdalla Cismaan Muqdisho biyuu ka digay mise kama digin iyo baal lama saarin meel dambe uu marayo Muqdishona mara meel uu marabo waa rajo badan oo uu ka qabay wasiirka China sababtu tahay waxa ka horeysay inuu wasiirkii arrimaha dibadda ee Israa'iil uu yimi Hargeysa laguna soo dhaweeyay si nabadgelyo arrimaha iyo xiriirka labada dalna la isla qaatay qodobadii ugu muhiimsanaa iyo danihii la kala lahaa isla sida cagsigeed waxa uu 70 dawladood oo ay galagalayeen ugu dambeyn wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka China la soo khasbay shalay toolo ay ahayd 10ka bisha iyo ilaa iyo maanta ay ahayd 11ka bisha January waxa laga sugayay airportka Aadan Cabdalla Cismaan kaasoo diyaaradaha qaybo kamid ah la kala xidhay oo fariidadii duulaya qaar kamid ah la joojiyay haddana wili lama sheegin inuu soo gaaray magaalada Muqdisho wasiirkaas Somaliland waxay awood u yeelatay diyaaradda
diyaaradda sidee ma garanayno iyada ama halkan idinkaba sheegi karo ciddii iska lahayd laakiin wafdida saarneyd baa taargetkeenu yahay. waxaynu halkaa kaga imanaynaa wasiirkii Chinaha ee hawada laga celiyay. waxaynu soo guuraynaa xasan sheekh maxamuud oo la sheegay inuu imanayo Laascaanood sidii muddooyin horeba la oran jiray. waxa airportka magaalada Laascaanood ee banka qiyaamo magaciisa ay u rabaxeen guurdhoweed ay sheegeen inay diyaarad timi oo Somaliland haddii aad taabic celisay tan maxaa loo celin waayay. been bay ilaahay u sheegeen waxna kama jiraan. diyaaradaha kuwii kaleba hawada laga celinayaa siday Laascaanood diyaarad u soo fadhiisatay aan taaqaadka ahayn la ogol yahay ganacsiga ee dadka reer Somaliland ahayn. waxaa daba idin sheegayaa diyaaradahan iyo ciidanka militariga ee ka soo degaya horta waa 12 bishii Abriil 2025 maalmihii wasiir geesoodii ay imanayeen waa tan screenshot-kooda. been bay ilaahay u sheegeen waxaasina waa waxa la masaarifsanaya ilaa iyo intii la lahaa firdhiya caana lagu shubay. maanta ma aha Somaliland hore maalinta bishii Abriil 12-keedii airportka nin madaxa ay kama soo degi karo nin naftiisa dee nacay mooyaan qof laakiin muwaadin reer Somaliland oo reer Soomaaliya uu iman kara waa caadi. waana lagu soo dhaweynaya war qof oday dhaqameed ama garaadadii ha noqdo ama qof kale oo ha noqdo ku matala siyaasadda ku matala oo meel kale ka yimaado reer Soomaaliya uu iman kara. qof ganacsada oo diyaarad garoonka ganacsigiisa ku keena waa dhici karta. sidee xasan sheekh maxamuud u iman kara garoonka cabdi bilaa cabdi loo muxuu ahaa magaciisa garoonka Laascaanood. anigu arrintaas arrin dhacaysa ma aha. arrintan waxa faafinaya waxa weeye dadka propagandooyinka dhinaca hawada u qaabilsan qoladan la yahay NISA haddii ay garanayo waxa weeye ciidanka sirdoonka Soomaaliya oo NISada muudaysan ma waa NISO laftigeedu ka kala socota Turkiga iyo Masar iyo Ethiopia ka kala socota oo qolo walba intii ay soo tababaratay waxay u hoggaansan tahay dawladda soo tababaratay iyo cidda ay salka ku hayso sirdoona kala u shaqeeyo weeyaan nimankan. waxa markaa aynu isla eegi doonaa xasan sheekh maxamuud ma iman kara. horta wuu doonayaa inuu yimaado laakiin u filmaayo inuu caga soo laalaadinayo halkaa ee waxa weeye cid iska soo horeysiinaya jirta. ciddaasi waxa weeye qofkii hoggaanka SC ahaa muxuu ahaa firdhiye iyo groupkiisa oo markii horeba jeebka xasan sheekh maxamuud ku jiro maalinta waxoogaa ka soo baxaysa lagu soo tuuralayaa hawlgeli dadka ciidamada halka jooga ee gurigii qabaa'ilka ku qoray ayaa la hawlgelinaya. laakiin arrintan ciidankan been weeyaan wax kama jiraan. qof kastoo daawaday oo ciidanka halka soo degay waa been waxa halka iyadoo baraha bulshada meelo badan dadku ay run qaateen. ciidamadaasi waxay hordhac u yihiin bay yiraahdeen wafdida soo socota ee xasan sheekh maxamuud imaatinkiisa maxaa sheegay Google xal yihiin. haddaba waxa weeye ciidamadaas waxa jiray kuwa ka sii horeeyay oo muddo mushaar ka go'naa inta mushaarkii loo dhiibay la hawlgeliyay oo maxay ahaayeen ciidamadaasi sida runtii waxa ay ahaayeen ciidamadii xasan sheekh maxamuud berigii hore beera ku qori jiray oo jiray kun warsangeliya iyo kun dhulbahanta. waa ciidamo gooja cadde degan oo firdhiye ka cabir qaata oo saacada xasan sheekh maxamuud dana leeyahay la istaago marka kalena mushaarka baa dilo doono laga jaro. halkaa marka aynu kaga nimaadno ciidankaasi xasan sheekh maxamuud ma iman karaa weey. xasan sheekh maxamuud si sababta uu imanaya maxaa ugu weyn ee Laascaanood ku kalifay ila horeba waa u iman lahaa firdhiye waa bishii 9aad mala caana shubkiisa inta la sugayaa iyo bishii aad 7 meelahaas 7 bilood bay noqonaysaa ku dardarin. waxa horta arrinta ugu weyn waxa weeye in caalamka laga iibiyo in Somaliland qayb kamida ay Soomaaliya gacanta ku hayso siday qaramada midoobay dhexdeeda kala haayeen. waxa kale oo iyana jirta in dawladda quwad leh dawladda ka riixayaan oo khayraadka badda cas mooyaane ama shiraalka yar halkaas ee Turkiga loo saxeexay ay taargetkooda ugu weyn yihiin. dawladahaasi waa iskaashi Turkiga iyo Masar baana ugu horeeyay sida ay horaba aynu cadawnimadooda ay u muujinayeen. waxa jira Turkigu danaha uu leeyahay waxa ugu weyn
in iskaashiga dhinaca shidaalka ay sheegeen haddaba waa kii badda iyo kii berrigaba berriga waxaa jira ceel ku yaalla holhol oo baadhistiisana somalilan baadhay ceelkaasi waa ceelka keliya la tuhunsan yahay lana doonayey khayraadka somalilan ka soo baxaya ee shidaalka in xisaabtiisa lagu daro ama uu ku jiray sida cilmi baarayaashii hore ee shidaalka baadhayay ay sheegeen waxaana jirtay shirkadda hore ee shidaal baadhista ay turkigu qayb ka ahaa inkastoo aanu shirkadda wada lahayn haddana turki iyo dowlado kaleba iska kaashanay horta danta turkigu waxa weeye soomaaliya shidaalkii bay isxeexday iyo macdantii dhulka waxaana weeye macdanta dhulka shidaalka ugu qaro weyno halkaas isaga dantaasa ugu jirta waxaa kaloo jirta masar iyadu mar waa lagu guuray marna waa hee dan bay leedahayoo mar waxa weeye etoobiya ayaa marka horeba ay bisad iyo jiir isku yihin badda casna inay etoobiya meel ka mida ay deked ka kiraysato iyo inay degto iyo inay wax kala soo degto waxa ay caqabad ku tahay masar dhaqaalaheeda oo ah kinaalka yar ay isticmaasho mar haddii ay xaggii webiga ciriiri ku saartay waana dagaal diblomaasiyadeed oo dhinaca istaraatiijiga ah oo badaha ah waxaa kaloo jirta masar iyo turkiba in dowlado kale quwadlihi ka dambeeyaan oo China ugu horeeyo kuwaasina dana iyaga laftigoodu macdantaas iyo dhinaca istaraatiijiyadda ayaa ugu jirta haddaba cidda keliya ee maanta la doonayo inay hawl gasho waayo marka horta waa dad Soomaaliyeed cadaan ku iman maayo cadaanna soo digi maayo laascanad laakiin qorshaha iyo action plan-ka la sameeyay cidda iska leh waxa ugu horeeya waa Turki cidda ugu horeysa ee la dirayaana waa Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda Muqdisho inta uu maamulay Muqdisho joogta Xasan Sheekh Maxamuud laftigiisuna cidda uu sii adeegsanaya horta ay dabka ku guraya waa dhul bahantay iyo firdhiye iyo intii la socotay caqliga lama aha in kaba qaarba gacanta ka taagay iyadoo loogu soo duur xulaya waa lagu caanshubaya 6 mashruuc oo la sheegay la dhex marinayo 6 mashruuc 9 hore uu sheegay 3 warsan geli lahaaba lama arag kii wadada isku xidhisay ilaa iyo las qorayo meey dekadii las qorayo wiil waa dhagax dhigaya aawo mashruucyadii warsan geli loo ballan qaaday mee kuwii dhulbaanta loo ballan qaaday mee waxa maanta markaa jira in la adeegsan doono niman SCC la baxay oo jabhada Somaliland marna yimaada marna taga marna soo gala marna baxa oo firdhiye hogaamiyay u yahay madaxdii iyo dadkii masiirka reerka ka tali jireen oo ku shalay hadlayo Somaliland ay ku jiraan haday tahay xildhibaan cod iyo qof lagu soo doortay haday tahay wasiir beel matalaya dhammaan Somaliland bay jooga dadkii wax garadka ahaa madaxa qofka dhulbaantaay maanta waa lacag waana xabadde haddaba waxay la tahay fursadaasi ma aha mid ay banaanka dhigayaan oo ka tegayaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladaha dabada ka wada maxaa Somaliland uga meel yaalla tallaabo ay qaadi doontaa ma aha mid aynu halkan ku falanqeyn karno sababtu tahay Somaliland maanta cadawgeedu uu ka badan yahay kuwa hore u taqaanay hadalka aynu nolaahana laga faa'iideysanayo iyo arrimaha guul mooyaan wax kale comment xitaa ku soo qorin waayo danaha istaraatiijigu ma aha wax fagaare lagaga cabir karo ama dadka shacabka ay si fiican u dhexgeli karaa sababtay reer Somaliland waa dad caqli badan qaab kastoo aynu u shaqeynayno waxa laga yaabaa inay public ahaan u sheegi karaan laakiin looma baahna adaa laga faa'iideysanaya halka markaynu kaga nimaadno ciidanka hordhaca ah ee maanta laascaanood soo dejinayo reer laascaanood waxaan leenahay istijiye 9 bilood baa airport ka banka qiyaamo taagnaydeen maantana Xasan Sheekh Maxamuud dantiisaasi waxa weeye mid ku kooban danta uu firdhiyo oo qura kaliya hadiiba imanka uu arko inay isbedel yimin idinku ba calaamaanteeda ka dhamaada stikerada meelaha ku dhijinaysa lacagta yar horumarinta imanka soo gaadhay laascaanood lagu hawl gelinayaan sidii tii hore un bay dhamaanaysaa dabtan bushaarad bay ka dambeynaysa waxa weeye dantiina garta hadaa cid wax ka goosanaysaan idinka oo isku duuban oo dantiina ka tashanaya waa in aad
kala hortagtaan waayo ninka muqdisho wax ka qaban waaye golaha baarlamaanka qofka afka duuban soo fadhiisanaya markii kii fadhiyay kursigana gudoomiyaha la waayay laascaanood ma waxaad filaysaa inuu naxariis yimi dawamay dowladda federaalkana sheegaysaana ay ka shaqeysaa meeshii galleeyda lagu boobay inta cagafta lagu dumiyay xagga dambe WFP waxa dhaanta adigu ku yiraahdo reer laascaanood baan maamul ahaan anaga laftigayow idinka oo Somaliland hoos taga baa idin dhaanto oo yiraahdo anagu Soomaaliland baan noqonaynaa laakiin Somaliland hoos taga disaami qaybsi development education waa ku qaybsanaynaa qaab kasta ay maamul kartaan waa maamulaysan laakiin danaha istiraatiijiga iyo xuduudaha Somaliland waa muqaddis waa lama taabtaan haddii xasan soo lugeeyay iyo haddii uu diyaarad soo raacana maanta awood baan u leeyahay aanu airport kaaga kaga soo digi karin taasina ma hamid aan marka kaga sheekayn karno waxa weeye lacagtiina iyo hawlihiina wixii ka soo dhacay iska gurta ciidamada anaba qaar baan mushaarka siinaa waslowdna maxaabiistan lala faqfaqay leeyahay labiska laga bedelayaan caawin arrintaas soo qaadan doonaa iyo sababaha iyo ujeedooyinka laga leeyahay dil guureejinaya haddana guureejinayno rag waa halkan jooga kale halka waxaynu kaga imanaynaa qodobka xasan sheekh maxamuud ku saabsan oo ku dheeraanay waxa jira hadaba shalay toole golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya shir 3 casho u baaqday kooranka buuxsan waaye ayaa shalay kooranka lagu soo buuxiyay gudoomiye ku-xigeenkii koowaad Sacdiye la oran jiray gabadh aan calaanka la garanayn wax allaale waxa ay tahay waa dalka la daawado waad arkaysaa shalay gabadh afduuban oo u dhalay oo maartay madaxa koofiyad way soo gashatay waa soo fadhiisatay booskii gudoomiye xubinka baarlamaanka Sacdiye qof soo fadhiya oo lala hadlayo aan hadlayn aniga ixtaawiye oran mayso afka inta iska furto oran mayso waa aniga waa Sacdiye qof soo fadhiya yaani heerkaas ayuu marayaa qof xasaanad leh oo jooga booskiisa in qof la soo fadhiisiyo halkaas uu marayaa ninkan aad arkaysaan wuxuu ka hadlay anigu inaan ka ma garanayno biil qofkii xitaa markii laga hadlo wala hadlay nin baa ugu dhiiran wuxuu yiri anigu gabadha ma cadeyn karo waxay tahay sida dastuurku yahayna wayna afka marada ka qaadaa looma jawaabin waxa la yiraahdo ka hadal ajada iduma joojin laakiin waxa cadaana qofka la muudayay inaanu ahayn lana wada gartay laakiin yaa ka hadli kara bad qof waliba dantiisa hawlihiisu wataa cid ka hadli kartaa ma jirto wixii imanaya maxaa ka garaadiga 140 ba kooranka ku buuxsamay uu weeyaan gudoomiye isaga ansixiyay kooranka arrintaasi waxa weeye gabi ahaanba baarlamaanka lagu sheegayo kuwa soo goostay anaga nala jooga Dubai hadda aragteen barnaamijkaasna halkaasaan ku tiirinay waxaynu soo bareynaa islaamo leh yuhuudda maxaa sheegay yuhuudda Allah nacdal tii Allah nacdal annaga wala yuhuudda Allah nacdal annaga lehbe waxa weeye ma garanayaan waxay ku mudaharaadayaan waxay ka mudaharaadayaan barka ila taa yuhuudda leeyahay yuhuudda Soomaali muku aadade yuujog waxa uu jooga kale iiga afkeen kaseen dad u fisiraa waa jooga waa loo fisiraa maanta uu lacag si jeclaalaay afkoodan ku caylahay hilibkood baa jarjareena waa gogoynayna waano cunayna suuqada horta baaya biyaasa ku quraacalaay horta yuhuudda nacdasha ku soo degtay waa mid xagga Ilaahay kaga soo degtay annaga adeer hano sawir saartaynina waxa weeye arrin kasta waxay leedahay meel laga galay meel laga baxo iyagu way galaanuna meesha ka baxaan ma yaqaaniin waxay ku dayanayaan dadka shacabka reer Somaliland ee sida mudaharaadka salmiga markay qaadayaan waxa ay ka doodayaan ama ka mudaharaadayaan sida saxda u sheeg waliba maxaa loo sheegtay yuhuud Allah nacdalo dee Allah nacdalo nacdalo la yuhuuda sheegaysan marka waxa ujeedka kaliya ay leeyihiin waxa weeye Somaliland ma iman karto weeyaan Somaliland way iman kartaa Soomaaliya way joogtaa hadda mala warbaydan iska hayn Soomaaliya way joogtaa Soomaaliyana tixir diblomaasiga labaad Turki baa dabadeeda ka wado deegaan ognahay waxaan oo dhan sameeyay Turki miya aragtiyada wili yuhuud xiriirka ugu weyn dagaal kasta oo dhaca mid ay carab ku qaaday iyo mid ay qashay ku burburisay iyo mid ay Beeshalmo Qudus ku qabsatay Turki dacidi kama xigto wala dawladda awood u leh weligii ma aragtay Turki oo xiriirka u jaray Israa'iil
ama danaha siyaasadeed xiriirka u jira ee isaga iyo Israa'iil ka dhaxeeya sirdoonadooda wada shaqeeya xitaa adar dunidan danana wala kala leeyahay diimana wala kala leeyahay dantana waa la wada qabsanayaa oo diintaaba sheegtay gaal iyo muslim wixii ay isku dantihiin waa wada qabsanaysaan laakiin diimaha wala kala leeyahay lakum diinakum waliya diina bali beentana ma aha taas islaamaha la waaray laamiga lagu wareejinayana mudaharaad hadday u baahan yihiin galeydoodii la boobay iyo WFP-doodii la boobay dadka danyartiya maxastaa inta loogu talagalay iyo kuwa gurigooda iyagoo iskaga nabad qabo oo kuwa bariistay cagafta xagga laga soo galinay u mudaharaadaan anu tan la yaabanay wataa dad danahoodii ka tashaday oo aan duco iyo habaartoona uga baahnay intay leeyihiin Israa'iil ma iman karto maxay iyagu danahooda gaarka marka taaba ka adkaataba dadka kalena laga hadlo anigu maanta waxaan u arkaa inaan badbaadi karnaa anigu Soomaaliya saacadan iminka Soomaaliya inaan anigu badbaadadeeda nahay ayaabaan anigu u arkaaba barnaamijkan waxaan ku soo gabagabeynaa halkaa tan iyo kulanti dambaran wada salaamaya waxaan idin leenahay maca salaama maalinta idin wacnaato dee habeentayna habeenku idin wacnaado barnaamijka xiga waxaan isugu iman doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo hadlay oo sidii Soomaaliland ku dhisatay iyo sida ay halkan ku timi iyo Soomaaliya waxay ku kala duwan yihiin halkan ka sheegi doona sidoo kale waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka dambe nimankii Ciise ilmudayna Soomaaliland ka go'ay cadaymo ku filan ayay horkeenayaan muwaadiniinta ugu waaweyn reer Soomaaliland inay Ciise tahay dagaaladan iyo waxa la wadana cidii wadada halka ka soo baxaysa markaa waan salaamay tan iyo kulanti dambe